Assalaamu calaykum. Kusoo dhawow daawada qaybta shanaad ee macluumaadka ku saabsan afgambigii dhicisoobe ee dalka Turkiga. Qaybta afraad waxay inoo joogtay markii aan ogaanay sidii afgambiga loo fashiliyay iyo kaalintii wariyaha dalkaasi Turkiga u dhalatay Hande Virad ay ku lahayd afgambigaasi iyo wareysiga ay la yeelatay madaxweyne Erdogan. Qaybta shanaad waxay ku bilaabanaysaa sidan: sida lagu ogaaday sahmin laga sameeyay dalkaasi Turkiga isku daygii afgambiga kadib, waxaa si aad kor ugu kacday taageerada madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ay dadkiisa u hayaan. waxaana soo baxday in saddexdii muwaadin kasta ee dalkaasi Turkiga ah laba ka mid ah ay taageersan yihiin siyaasadiisii uu qaaday isku daygiisii afgambiga kadib. sahmin ay samaysay mu'asasada Metropol oo natiijadeeda ay soo baxday 11 Agoosto 2016 waxay cadaysay in 68% dadka wax laga weydiiyay si aadna inay u sareyso ayna ula dhacsan yihiin shaqada iyo tallaabooyinkii uu qaaday madaxweyne Erdogan, taas oo ka dhigan in 21% ay korodhay shacbiyadda madaxweyne Erdogan intii ka dambeysay afgambiga. wakaaladda wararka ee France Press ayaa iyaduna natiijadan ku tilmaamtay inay tahay shacbiyaddii ugu badneyd ee labaad ee madaxweyne Erdogan uu helo tan iyo markii xukunka dalkaasi uu qabsaday 13 sano ka hor. dhinaca kale waxaa ra'yi ururinta ay muujisay in 27% oo kaliya ay ka mid yihiin dadka reer Turkiga ee sahminta laga sameeyay inay sheegeen in raalli aysan ka ahayn siyaasadda madaxweyne Erdogan, halka tiradaasi bishii afgambiga ka horeysay ee June ay ahayd 47%. shacbiyadda madaxweyne Erdogan waxaa si fiican ay uga muuqataa miisaanka dibadbaxyada lagu taageeray oo inkasta oo ay ku jireen dadyow badan oo aan taageersanayn ama taageerayaashiisa kaliya aan ahayn diidanaana afgambiga inay qayb ay ka noqdeen kuwii taageeray, taas oo sii kordhisay taageerada uu helay madaxweyne Erdogan. haddana waxay caddeed sida dhammaan magaalooyinka dalkaasi Turkiga dadkiisa ay uga qayb galeen dibadbaxyada. sidoo kale taageerada Erdogan waxa ay ka muuqatay magaalooyinka Yurub oo iyaguna ay ka dhaceen dibadbaxyo ay jaaliyadda Turkiga ee jooga ay ku muujinayeen taageerada ay u hayaan madaxweyne Erdogan iyo inay ka soo horjeedaan sifo kasta oo aan doorasho ahayn oo la doonayo in xilka looga qaado. magaalooyinka waaweyn ee reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan Berlin, Brussels, Zurich, Washington, Zeebrugge iyo magaalooyin kale ayaa boqolaal iyo meelaha qaarkood kumanaan muwaadiniin dalka Turkiga ay isugu yimaadeen. safaaradaha dalkooda ay ku leeyihiin magaalooyinkaas ayaa ay tagayeen si ay u muujiyaan dareenkooda diidmada afgambiga iyo taageerada yaab kale oo ay u hayaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. arrintan ayaa la dareensan yahay inay warwar badan ay ku abuurtay reer galbeedka oo sidii ay kaga dareen celiyeen afgambigii dhicisoobay ay Erdogan iyo dad badan oo kaleba ay ku abuurtay cara mararka qaarkood gaartay heer mas'uuliyiin ka mid ah dowladda Turkiga ay ku eedeeyeen in reer galbeedku afgambiga barakeynayeen. waxa ay dalalka qaar ka mid ah iyo hay-adahooda u dooda xuquuqda madaniga ah ay bilaabeen inay muujiyaan cabsi ay ka qabaan in shacbiyadda xaddaafka ah ee dadkiisa ay uga faa'iideysan karo inuu qaado tallaabooyin siyaasi ah iyo kuwo diblomaasiyadeed oo uu ku dayrinayo dalalka reer galbeedka, kuwaasi oo og xaqiiqada ah in waqtigan aanay ka maarmaynin istaraatiijiyada dowladda Turkiga iyo xuduudda ay ku leedahay NATO. walaacaasi waxaa si gaara looga dareemay dalalka Mareykanka iyo Jarmalka. fariisin military oo ku yaala Turkiga ayaa saldhig u ah duulaanada uu Mareykanka uu ku qaado kooxaha islaamiyiinta ah. wararka afgambiga dabadii soo baxayna waxa ay sheegayeen in madaxyo nuclear ahi ee Mareykanka ay u yaalaan dalka Turkiga oo ah dal istaraatiiji u ah isballaarinta militariga ee Mareykanka ku xoojinayo joogitaankiisa dunida oo dhan. dalka Jarmalka ayaa isna Turkiga u arkay inuu leeyahay muhiimad dhinaca militariga ah iyo inay ka qayb qaadan karto xakamaynta soo galootiga ah, kuwaas oo fara badan ku haya dalka Jarmalka iyo guud ahaan dalalka kale ee Yurub. Turkiga oo ogolaaday in taariibiyaasha badqab ku dhaafaan ama kaliya xakamada adag ka daaya maritaanka badiisu waxay si sahal ay u keenaysaa in malaayiin magagalyo doon ah ay ku qulqulaan dalalka Yurub oo Jarmalka uu ugu horeeyo, iyada oo la joogo xilli uu sii kordhayo dareenka laga qabo in qulqulka dadka sida xooliga ugu jabay qaaradda Yurub ay sabab u noqon karto burburka midowga Yurub. walaaca labadan dal iyo dalal kale oo reer galbeed ahi ay qabeen waxa uu sii xoogaystay markii ay arkeen jawaabaha ficilka ah ee Erdogan durbadiiba uu ka bixiyay afgambigii fashilmay, kuwaas oo ay ugu horeyso inuu si degdeg ah u soo celiyay xiriirkii uu la lahaa dalka Ruushka oo weliba halkii uu hore kaga koobnaa ganacsiga oo hadda dhinaca ammaanka uu ku daray, dalka Iiraan oo hore u fogeynayana uu sidoo kale xiriirkii uu la lahaa uu dib u soo nooleeyay, isaga oo sida muuqata doonaya inuu arrinta Syria xal u helideeda uu ku koobo dalalka Turkiga, Ruushka iyo sidoo kale Iiraan oo markii hore uu diidanaa inay qayb ka noqdaan.
waxaa taasi kasii daran dhiiranaantii Erdogan uu ku sheegay inuu diyaar u yahay ka mid noqoshada isbahaysi ka madax bannaan NATO oo dalal badan oo kale ay isku xulafaysanayaan. markana sababihii fashilaada. sida aynu dareemi karno, qorshe kasta oo sida kan Turkiga afgambigiisa lagu diyaarinayo u ballaarani waxa uu taxadar badan ka leeyahay inay fashilaadi ku timaado, maadaama kooxaha diyaarinaya ay dareemi karayaan in fashilaada qorshahoodu uu yahay dhammaadka noloshooda. sidoo kale waxa uu leeyahay waqti fiican oo kooxda shirqoolka siyaabo badan dhinac kasta ay uga qiimeeyaan ugana saxartiraan si aanay fashilaadi u dhicin. waa run in furaha koowaad ee fashilaada afgambiga Turkiga uu ahaa in madaxweynaha oo badqaba oo talinaya uu ka soo muuqday muraayadaha telefishinada, taas oo mar kale niyajab ku riday kooxaha afgambigii waday, waayo waxa ay dareemayeen miisaanka dambiga ay ku jiraan. waana sababtay ay koox kasta oo afgambi ah ay ugu dadaasho in tallaabada koowaad ay noqoto qabashada ama dilka madaxweynaha, si cid kasta oo daacad u sii noqon lahayd niyadda ay ugu sheegto in taariikhdaasi ay dhammaatay. sidaas oo ay tahay, haddana guusha fashalinta iskudayga afgambiga lama wada siin kara ereyada kiciya shucuurta dadka Turkiga ee uu Erdogan uga jeediyo telefishinada xilli ay warkiisa ay la'aayeen, gaar ahaanna marka loo eego heerka guusha ku dhow ee afgambigu uu gaaray, oo aynu oran karno ereyadaasi oo kaliya kuma aanay filnaaneyn inay dib u soo noqoto. warbixin uu wargeyska The Guardian ka qoray miisaanka uu lahaa iskudayga afgambiga ayuu ku cadeeyay in waxba kama jiraan ay tahay sheegashada dad badan oo mucaaradka Erdogan ee dalka Turkiga iyo shisheeyaha ay lahaayeen, taas ay ku andacoonayeen, taas oo ahayd in afgambigu uu ahaa mid ay ku kaceen jar iska xoorayaal tiro yar oo bilaa qorshe ahaa. haddaba curiyaasha ama ereyada kale aan ku lari karayno hadalka madaxweyne Erdogan ee sababta fashilinta afgambiga lahaa waxaa ka mid ah: 1. iskudaygii xariga wasiirka difaaca ee fashilmay. liiska mas-uuliyiinta ee kooxda afgambiga ay qorsheynayeen in nolol lagu qabto ama la dilo sida hore aynu usoo xusnay waxa ugu horreeyay madaxweyne Erdogan, waxaa iyadana ku jira ra-iisul wasaare bin Ali Yildirim iyo sidoo kale wasiirka difaaca iyo arrimaha gudaha oo labaduba saameyn amni iyo mid ciidan yeelanaya. maalinnimadii Jimcaha ee qorshaha afgambiga oo habeennimadii uu fuli doono ayaa fariin martiqaada loo diray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Turkiga. waxaa lagu wargeliyay in isla maalinimadaasi uu jiro shir muhiim ah oo mas-uuliyiin sare oo ka tirsan sirdoonka iyo weliba taliska guud ee ciidamada ay isugu imaanayaan. wasiirka oo marka hore aqbalay casuumaadaasi ayaa waqti yar ka hor saacadaha ballanta waxa uu ka cudur daartay imaanshaha shirka loogu yeeray kadib markii uu kaga mashquulo howlo kale oo muhiim u ahaa oo ballanta kadib soo baxay. waxaa markii dambe la ogaaday in casuumaadaasi wasiirka ay ka mid ahayd qorshaha afgambiga oo la doonayay in marka shirkaasi uu yimaado la xidho. sidoo kale in wasiirka la xidhin waxa ay kaalin weyn ay ka qaadato fashilaada afgambiga, maadaama uu markii iskudayga uu dhacay uu si buuxda u adeegsaday awoodiisa maamul ee dhinaca amniga oo uu howlgeliyo booliiska iyo hay-adihii kale ee amniga ee isaga hoos imaanayay si ay afgambiga u fashiliyaan. arrinta labaad, taliyaha waaxda la dagaalanka argagixisada. taliyihii laanta la dagaalanka argagixisada ayaa isna ka mid ahaa ragga ay isla maalintaasi Jimcaha shirka shirqoolka ah ay ugu yeedheen kooxaha afgambiga, maadaama uu ahaa nin lagu tirinayo in madaxweynaha ay aada isugu dhow yihiin islamarkaana uu lahaa xoogag ciidan oo isaga hoostaga. waxaa kaloo kooxaha afgambiga qorshahooda ay ku darsadeen in bilowga iskudayga afgambiga ay ka hor ay gacanta ay ku dhigaan mas-uulkan, taas oo u fushay. mas-uulkan oo dowladda Turkiga u qaabilsanaa dagaalka ka dhanka ah ururka Daacish ayaa isagu waxa uu tagay shirkii loogu yeeray oo lagu qabanayay qayb ka mid ah dhismaha weyn ee madaxtooyada lafteeda. maalinnimadii dambese markii iskudaygii afgambiga uu fashilmay waxaa la helay isaga oo meyd ah oo laba dibla u xiran, xabadkana ay xabadi kaga taalo. arrinta saddexaad ee qorshaha afgambiga fashilisa waxaa ka mid ah qorshaha afgambiga oo laga war helay. marka aynu sii wadno arrimaha muhiimka ah ee loo aaneynayo inay soo dadejiyeen fashilaada iskudayga afgambiga ee dalka Turkiga, waxaa iyadana xusid mudan sirdoonka dalka Turkiga oo qorshaha ogaada saacado ka hor, taasina ay qasab ay ka dhigtay kooxaha afgambiga oo ka war helay in la ogaaday ay qorshahoodii fulintiisii waqtigii ay ugu talagaleen 6 saacadood ay kasoo hormariyaan. wax ka bedelkan lagu sameeyay jaangoynta waqtiga ee howlaha ayaa keentay fadqalooyin ama qarba badan iyo in arrimo badani aanay si sax ah aysan u dhicin. xoga ee Al Jazeera ay heshay ayaa iftiiminaya in sirdoonka dowladda Turkiga ay 4tii galabnimo ee maalintii Jimcaha ay dhageysteen hadal taleefan la isku weydaarsanayo oo madmadow badani uu ku jiro.
waxaana uu ku abuuray shaki ah in la wado qorshe iskuday afgembiga lagu doonayay, kaas oo rumoobay markii uu bilowday 5 saac uun kadib waqtigii xogtan sirdoonka ay heleen. xogaha mar dambe la ogaadayna waxa ay muujinayeen in qorshaha kooxda afgembigu uu ahaa in hawsha ay bilaabaan 3 habeenimo ama 9 saac ee arooryada sabtida ah ay soo galaysay. waxaa la dareesan yahay in afgembiga saacadda la ogaaday ay wax badan tartay, laakiin haddana waxay ahayd goor dambe oo ay adag tahay in laga hortago waxa dhacay. waxaa iyadana caqabad weyn ahayd awoodda sharci ee sirdoonka dalka Turkiga oo xakamaysay dadaalkii ay ku fashalin lahaayeen afgembiga. sida uu sharciga dowladda Turkiga uu dhigayay, sirdoonka awood uma uusan lahayn inuu la socdo ama uu soo dhexgalo howlaha ciidanka qalabka sida. agaasimaha sirdoonka Hakan Fidan oo xogtan wakaaladiisu ay heshay ayaa markiiba waxa uu tagay taliska guud ee ciidamada, waxaana uu kula kulmay taliyaha ciidamada Khalusi Akar xilli ay saacadu ahayd 4:15 galabnimo, isaga oo hordhigay xogtii sirdoonka uu helay. General Khalusi Akar markii uu agaasimaha sirdoonka xogtan uu siiyay waxa uu la xiriiray agaasimaha sirdoonka militariga oo hoos imaanayay iyo ku-xigeenkii taliyaha guud ee ciidamada oo labaduba ahaa rag uu aaminsan yahay. waxa uu weydiiyay waxa jira, laakiin nasiib darradu waxay ahayd in labadan mas'uul uu General Khalusi la xiriiray ay labaduba ay ahaayeen ragga wada shirqoolka afgembiga. sidaasi awgeed waxay ku wargeliyeen Khalusi in xaalku uu dabiici uu yahay. sidoo kale waxa ay ku wargeliyeen inay jireen dhaqdhaqaaqyo yar oo ciidan oo ahaa kuwii caadiga ahaa. markii labada nin ay General Khalusi xogtan majaaraha habaabinta ah ay siiyeen, waxay dhaqso ula xiriireen saaxiibadoodii afgembiga kuna wargeliyeen in xogtoodii ay baxday. si kastaba ha ahaatee, agaasimaha guud ee sirdoonka dalkaasi Turkiga Hakan Fidan waxa uu ku adkaystay hadalkiisii ahaa in afgembigu uu jiro. taasina waxay sababtay in taliyaha guud si uu arrintan u soo xiro uu amar uu ku soo rogay dhammaan guutooyinka iyo cutubyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida, taasoo ahayd inaanay maalintaasi wax dhaqdhaqaaq ah aysan samayn oo uu ku jiro xitaa dhaqdhaqaaqii caadiga ahaa ee jiri jiray. amarka xakamaynta dhaqdhaqaaqa militariga ee General Khalusi waxaa ka mid ahaa diyaaradaha militariga aanay saacadaasi laga bilaabo wax howlgal ah aysan u kici karin ilaa amar dambe, taas oo laga helaya taliyaha guud ee ciidamada, inkastoo goor dambe ay ahayd xilliga uu sirdoonka uu ku baraarugo waxa dhacay. dhinaca kalena xiriirka taliyaha guud ee mas'uuliyiinta militariga uu ku weydiinayay waxa jira waxa ay noqdeen arrin baraarujisay kooxdii afgembiga oo ka warheshay in xogtoodii la helay. waxaa kaloo ay qaateen go'aan ahaa in 5 saac ay kasoo hormariyaan waqtiga ay u qorsheeyeen bilowga howlgalka afgembiga. haddana waxaa hubaal ah in kulanka Hakan iyo Khalusi oo si weyn u sii dhaawacay habsami u socodkii qorshaha afgembiga. kooxda afgembigu sidaan horey u xusnay waxa ay go'aansadeen in mar haddii warkoodii sirdoonku uu ogaaday inay fiican tahay in qorshaha afgembiga fulintiisa ay soo dedejiyaan, waxaanay bilaabeen in ay yimaadaan taliska guud ee ciidamada qalabka sida oo weli uu ku sugnaa General Khalusi, iyaga oo bilowgii isku dayay inay ku qasbaan inuu la qaato fikirka afgembiga. laakiin markii uu ka madax adeegay intii ay xidheen madaxana kiish madow ay u geliyeen ayaa ay ku xireen qol ka mid ah taliska guud ee ciidamada ka hor inta aanay goobta ka kaxayn. saacaddu marka ay sii maraysay 8 fiidnimo ayaa uu sirdoonka si rasmi u xaqiiqsaday in afgembigu uu run yahay. waana markaas markii uu Hakan Fidan la xiriiray madaxweyne Erdogan oo weli ku sugan hodheelkii ku yaalay deegaankii uu ku nasanayay ee Marmaris si uu uga warramo afgembiga. waxaa kaloo Hakan Fidan uu la hadlay dhammaan xoogaga hubeysan ee sirdoonka maamulo iyo saraakiisha kala duwan, isaga oo ku wargeliyay in afgembi uu jiro, go'aankiisuna uu yahay inay ka hortagaan ilaa ruuxa ugu dambeeya uu ka dhimanayo. arrinta afraad ee loo aaneynayo fashilka afgembiga waxaa ka mid ah generaalkii diiday inuu ku wacdfuro Erdogan. arrinta kale marka laga hadlayo fashilaada afgembiga ee qasabtahay in la xusaa waxaa door ku lahaa General Umid Dondar oo ahaa taliyaha qaybta koowaad ee ciidamada dalka Turkiga. sida muuqata kooxaha afgembiga bilowgii waa ay koobnaayeen, diyaarna uma aysan ahayn in generaalkan ay ku daraan qorshahooda, laakiin markii ay ogaadeen in warkoodii la helay oo taliyihii sirdoonka uu ku jiro hawsha fashilinta isku daygooda, waxay qaateen go'aan ahaa in qorshaha uu si dhaqso ah ugu soo daraan taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Khalusi Akar iyo taliyaha ciidamada qaybta koowaad Umid Dondar. haddii aynu hore u soo aragnay General Khalusi oo inta uu diiday ay uga abaalgudeen inay xiraan General Umid Dondar, isagu ma aysan qaban oo isgaarsiintii ayay ugu sheegeen qorshahooda afgembiga inay doonayaan inuu kala qayb galo. Umid Dondarna waxa uu mas'uuliyiintii afgembiga ee la soo hadlay u sheegay in arrinta kedis ay ku tahay oo ay u baahan tahay in cabaar uu ka yara fakaro si uu dhinacyo badan ugu eego, isagoo u ballan qaaday in go'aankiisa uu soo sheegi doono oo ay waqti ay siiyaan. taasina waa ay ka aqbaleen,
laakiin markii uu taleefanka dhigayba oo saacaddu ay ahayd 8:15 habeenimo waxa uu toos ula xiriiray madaxweyne Erdogan waxaana uu sheegay waxa dhacay sida aynu qormadan bilowgeedii ku aragnayna Dondar wuxuu Erdogan u ballan qaaday inuu difaaciyo ilaa nafta ay ka baxda ama ay guuleysanayaan isaga oo ka raba kalsooni iyo inaanu dhayal uusan isu dhiiban ee shacabka badan uu la hadlo taasina waxay ahayd mid jira General Dondar isaga ciidamadiisu waxay ka agdhawaayeen Istanbul waxa Erdogan uu ku wargeliyay inuu u soo duulo Istanbul si uu ammaankiisa isagu u sugo Erdogan si dhaqso ayuu u qaatay soo jeedinta generaalkan sidaan hore u soo aragnay durbadiiba isaga iyo raggii la joogayna waxa ay tageen garoonka kii ugu dhawaa ee ahaa Dalmaan waxaanu ay soo raaceen diyaarad rayid ah oo ka mid ah diyaaradaha shirkadda duulimaadyada ee dalka Turkiga isagoo halkaasi kaga tagay diyaaradii madaxtooyada waxaa caado ahayd in gegidan ama garoonkan ay diyaaradaha rakaabka si joogta uga soo kacaan iyaga oo sida dalxiisayaal ku socda ama ka soo noqday magaalada loo nasasho taga ee Marmaris fadliga faragelinta ciidamada qaybta koowaad ee General Dondar hogaaminayay waxay ku timid in diyaaradda madaxweynuhu uu saarnaa si amaan ay ku soo fariisatay Istanbul kadib markii garoonka laga nadiifiyay kooxaha afgambiga ee diyaaradda ku sugaya hawada oo ay 1 saac iyo badh ay ku jirtay muddadaas oo ay diyaaradda madaxweynaha hawada ku jirta ayaa ciidamada qaybta koowaad dadweynaha gadoodsanaa iyo sidoo kale xoogagii booliiska waxay ku guuleysteen in kooxaha afgambiga ay ka dareeriyaan qaybta raadaarka iyo guud ahaan gegida diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul dibna ay uga shaqeysayaan leedharkii ay damiyeen iyo guud ahaan adeegyadii madaarka arinta shanaad ee loo aaneyn kara waxay tahay afgambiga oo aan ciidamadu aysan u wada dhamayn inkastoo ay muuqatay in afgambiga dalka Turkiga uu ahaa mid si xil dheer looga soo baaraan degay waqti fiican la siiyay qorshaha fulintiisa iyo xitaa ku soo fikristiisa nooca maamul ee talada qaban doona muddada ku meel gaarka ah haddana waxaa muuqata in qaladka ugu weyn ee kooxaha afgambiga uu ahaa in qorshahooda ay ka reebeen saraakiil muhiim u ahayd guushooda tusaale ahaan marka aynu Istanbul oo kaliya aan eegno waxaa ka maqnaa taliyaha qaybta koowaad General Dondar oo aynu sheegnay in ciidamadiisu ay ahaayeen kuwa ugu dhow ee maamulaya awoodna u lahaa inay maamulaan Istanbul rag muhiim ah oo ka maqnaa iyo ciidamadii ay ku talagaleen inay howlgalka fuliyaan oo aan tiro ahaan ku filnayn wax ka qabashada dal sida Turkiga oo kale u ballaadhan ayaa waxay ahayd arrin muhiim ah oo soo dadejisay fashilaada isku daygii afgambiga waxaa isna ka maqnaa taliyaha ciidamada badda iyo taliyaha ciidamada gaarka ee dalka Turkiga oo labadaba inta ay dhaqso warbaahinta uga hadleen waxa ay sheegeen inay ka soo horjeedaan afgambiga taliyaha ciidamada cirka oo aan isagoo bilowgii diidmada mowqifkiisa aan cadeyn ayaa isna ficil ahaan laga dareemay inuu maqan yahay gaar ahaan markii ay dhacday in diyaarado ka amar qaadanaya taliyaha ciidamada cirku ay duqeeyeen kaarayaal ay wadeen ciidamada afgambigu arrintan oo isugu tagay waxay ahaayeen sabab aad u weyn oo ka mid ahayd waxyaabihii fashiliyay isku daygii afgambiga ee dalka Turkiga ee 2016 qodobka lixaad ee isagana loo maleynayay inuu qayb ka ahaa fashilintii afgambigii dalka Turkiga dowladnimo dhidban qiimo kasta oo ay leeyihiin sababaha aynu soo tirinay in loo aaneyn karayo fashilintii ku yimid isku daygii afgambiga ee dalka Turkiga waxaa jirta sabab la oran karo isku darkooda waa ay ka miisaan roon tahay oo ay badbaadisay nidaamka dimuqraadiyadda ee dalka Turkiga taasoo ah tiirarka adkaanta iyo salfogaanta dowladnimada dalka Turkiga waxaa xaqiiq ah in hadba inta ay jirto dowladnimada iyo dhismaha hay'adaha dawliga ahi ay si weyn uga qayb qaataan adkeysiga iyo iska caabinta dabaylaha ku kaca ee damacooda uu yahay inay si wax ay uga bedelaan Turkiga waxaa dunida uu tusay in taariikhdiisa fog ee la og yahay aanay ahayn mid maalmo oo kaliya uu tirsanayo laguna dumin karo halka ay noo joogto qaybta shanaad ee sheekada ama macluumaadka ku saabsan afgambigii dhicisoobe ee dalka Turkiga buugani waxaa qoray Kamaal Axmed Cali oo ah qoraa haddii aad doonaysid inaad iibsato buuggan oo aad hesho macluumaad intaani kasii dheeri ah waxaad ka iibsan kartaa magaalooyinka kala duwan ee dalka haddii aad ku sugan tahay dalka dibadiisana waxaad ka heli kartaa bogga Amazon mahadsanid qaybta xigta intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.